بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ضاوديال وحنا هاي أويس حسن محمد waxaad ku soo dhawaataan xalaqo kale oo kamid ah taxanayaashii aynu ugu magac darnay sooyaalka dhaqdhaqaaqyada islaamiga mucaasarka Soomaaliya qaybtii hore waxaan ku soo qaadanay intii daawatay taxanayaal ku saabsan siday ku soo bilaabatay ama ku soo bilaabmeen dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta casriga ah inagoo ka soo bilownay dhaqdhaqaaqyadii gobnimo doonka haddana muuqaalkii islaamiga lahaa iyo waliba kuwii kale aan hubaysnayn ee dacwada islaamka faafinayay waxaana xigay waxa uu ahaa sida midowgii maxaakiimta islaamiga ay uga abuurmeen koonfurta Soomaaliya caqabadihii iyo guulihii ay gaareen waxa inoo xigay qaybtan ugu dambeysay oo aad ku daawateen barnaamijkeennii ciidamada Itoobiya oo awood ku soo galay dalka kadib markii dowladii ku meel gaarka ahayd ay dalbatay garab military ama ciidamo ajnabi ah Itoobiya ayaa ugu soo horeysay wixii taageeray dowladii ku meel gaarka ahayd ee Colonel Abdullah Yusuf Ahmad oo bariga ka arriminayay dalka haddaba qaybtan waxaan kaga hadli doonaa isla taxanayaashaasi la xiriira sooyaalka dhaqdhaqaaqyada islaamiga mucaasarka ah guulihi maxaakiimta ay gaareen oo aan qodob u dul istaagi doono bixitaankoodii Muqdisho guuldaradoodii ay ku guuldaraysteen dagaalkii ka dhanka ahaa ciidamada Itoobiya iyo waliba sida ugu dambeyntii maxaakiimta iyo dowladii ay isugu darsameen oo awood qaybsi dhanka dowladnimada ah ay u gaareen waxaan sidoo kale ka hadli doonaa nooca xaq jirka Soomaaliya sida uu ku yimid ama uu ku bilowday dhibaatadii lagala kulmay iyo dhaqdhaqaaqyadii kale ee soo baxay markii ciidamada Itoobiya dalka ay soo galeen ama kadib waxayna jooga oo aan uga mahad celinaynaa barnaamijkan gudoomiye ku-xigeenkii golihii midowga maxaakiimta bariga xogiyihii guud ee ururkii dib u xoreynta Soomaaliya wasiirkii garsoorka xukuumadii ku meel gaarka ahayd Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax Janaqo hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida waxaynu joogtay xalaqadii ugu dambeysay adinkoo ku dhawaaqay dagaalka dhan ah Itoobiya waliba madaxii gaashaandhigga ee waqtigaasi uu yiri Addis Ababa ku dukanaynaa inta aan ku soo laaban dagaalada iyo sida u dhaceen bal wax yar aan dib ku celiyay jabkii maxaakiimta marka laga soo tago maxad u qabateen dalkan muddadii 6 bilood ee aad ka arrimaysay Soomaaliya sidoo وأدوها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد وفرحت بيتاي مركلة إن كلنا دلسن تي في إيو أويس حسن محمد وحقبت كمحاكمته وهو مد آد وضاء وأي كمرقاتي كعين القاصي والداني يعني شيشاية يسكاية أي كمرقاتي كعين dadka Soomaaliyeedna ayadoon cid u sheegtay ama u laqintay aysan jirin ay u bixiyeen 6 bilood oo 60 sano ka qiimo badan erayada ay ku xuseen ama ay ku tilmaameen guushaas iyo qiimaha badnayd ee dadka ajaanibka ah aan Soomaalida ahayn waxaan ka xusi karnaa oraahdii macadka weyn ee Ingiriiska laga leeyahay Chatham House oo ku magacaabay Golden Age وصوماليا وقت جي محاكمته وليه وحي هذا العصر الذهبي دمان صوماليا تاس مركا عن كسو تجو وحقبت كأن تلمامي كرنو وآد كأمه قضية وأن كو يلا بديه كرنو حاجو مهم سنة سوق دي أمنيجا مجالة مقدشو إيو أنت أي محاكمته جارين تاسو كنتي إن سن نبضة دتكو أيون ولا دان سحر الرياض اللي أي ماركتي أيقون ولول إيا بغدين قبين أي فرحات لصوب بحين تاسو أي نهيرين مددي كهريسي ama u dhaxaysay waqtigaas maxaakiimtu ay carrada ka arrimiyeen
iyo burburkii dowladdii militariga inta u dhexaysay problemkii jiray ayaa hal mar looga nastay. waxay ahayd taqriiban wax la dhihi karo lama filaan bay ahayday ama waxaan maaragtay waqtiyadan dhow la malaysan karin oo wax sida mucjizadoo kaleeto cirka ka soo degay. taasna ma ahayn wax ay maxaakimtii iyo keliyood ay sameeyeen, waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed oo u heelanaa inay maaragtay mar uun iska rogaan heeriyada ay dul saareen hogaamiye kooxeedyadii berigaas siyaasadda ku loolamayay oo ku guul daraystay inay dalka ammaankiisa sugaan. shacabka Soomaaliyeed ayaa garab siinayay maxaakimta iyagu iyo ragga talinaya iyo ciidamadooda kaliya ma ahayn guushaasi, guul shacabku ay leeyihiin bay ahayd. waayo waxaa adduunka la isku waafaqsan yahay siyaasadaha kala duwan ee reer galbeedka iyo kuwii hore oo berigii la dhihi jiray Sovietkii uu dhisnaayay Warsaw iyo NATO, kulligood markii la isku daro waxaa la isku waafaqsan yahay siyaasad ama dagaal waxaa ku guuleysta ciddii shacabku la jiro. taas marka guushaas in dadku maxaakimtay sheegaan, laakiin aniga waxaan leeyahay shacabka ayaa iska lahay guushaas. walowlaa shacabka uusan garab istaagi lahaynna nimankii hubka tirada badan haystay oo iyaga laftigoodu maqruuriinta ahaa ee iscajabiyey ee yiri man ashaddu minna quwa lisaanul xaalkoodu ahaa cidii uma babac dhigi karteen hubka ay haysteen. iyaga laftigoodu markii ay jabeen ay jawhar xagga u dhaafeen way isla yaabeen sida ay qaarkood noo sheegeen. annaga laftigeena yaabnay dheheen rasaasta noo raran culayskooda baabuurtii ama lagu raray ee maaragtay mugow meel istaagan la leeyahay armay lugaha ka baqaan iyo hubka iyo baabuurta iyo tiknikada iyo qoryaha iyo ciidanka waxa ay isu keenay ay jamciyeen waxay ahaayeen wax ilaahay jabshay moogiye ma ahayn muxuu ahaa cid baa idinka adkaan karta iyaguna isma lahayn, dadkuna aada ugama malaynayn in laga adkaan karo. marka in nimankaa inta maaragtay sharkoodii ilaahayna dhaafiyey dalkii dadku ay ammaan ay heleen waxay ahayd guusha ugu weyn. guusha labaad waxay ahayd in dekedii muddadaa dheer iska xirayd oo iyadoo halkaas iskaga taalla aan cid ka faa'iidaysanaysaa jirin ee dadku ay maaragtay ceelmacaan iyo marka iyo haddii alla kuu ron yahay laash iyo la isticmaalayo yaryar oo wax lagu soo bajalaqinayo raashinka qoyahaye ee haddana meel dheer laga soo raraayo ee jid uusan jirin. problemkii ay ganacsatadu qabeen iyo ummadda guud ahaan in loo furay dekedii oo ay si fudud halkan ay uga soo degto raashinkii asagoo nabad qaba badeecooyinka ay ka soo degaan. guusha kale oo la taaban karo taasay ahayd. waxaa iyaduna ay guul la taaban karo oo weyn ahayd oo aan qodob dul istaagi karno airportka furidiisa oo aan rajo badanba lahayn, bal in lagu dega iska dhaafe in runwaygu uu burburo oo dhexda ka kala go-o halis ugu jiray. waxyaabihii ugu horeeyey waxay ahayd mataarkaas in laga soo dego oo la furo. taas waa runtii cadow badan lahayd. cadowga tirada badan oo ay lahayd waxaa ka mid a kan gudaha iyo kan shisheeyaha intaba. waxaa igu maqaalaa dayuuradii ugu horeysay ee ku degtay meeshaas baylotkii waday markuu Nairobi ku noqday, Nairobi uu ka soo duulay, in la dilay ayaa igu maqaalaa. ma hayo xogtaas oo canshuuran, laakiin dad badan oo ila qaba ama warkaas ila maqlay inay jiraan oo xaqiijin kara waan rajaynayaa. sababta loo dilay haddii insax alkhabar wax kale ma ahan seed ugu degtay garoon aan maaragtay muxuu ahaa la rabin inuu furmo. ya ninkii waxaa laga sheegay muxuu ahaa isku dirkooda inta aan ka maray war ma u haysa so garoonkaas inuu xirnaado yani dhibka laga maray ama sida loogu dadaalay inuu xirnaado usan furmin waad garan kartaa. waxaa intaas runwayga waxaa laga soo qodayay dhanka badda oo jaygii ku jiray bay la baxayeen kuwa maaragtay wax magarataa iyagoo qodaya baa laga raacdeeyey. markaasaa si degdega loo duugay. marka muxuu ahaa si hadda derbiga ku dhisan waad aragteen oo dhanka badda laga dhisay, markaasaa la dhisay si biyaha markay soo garaacaan. waxaa ka horreysay markay soo garaacaan aysan laamiga usoo gaarin meesha dayuuradu ay ku degaan. marka waxaa ka horreysay waagii Unisom ayay bahalihii barimaa'iga ahaayee ay Unisom isticmaalayeen baribiyoodkii ahaa dooda gelayay ee kasoo baxayay ayaa wuxuu dhibay
badda laftigeeda derbiyo dhagaxaho oo dabiici aho ilaahay u sameeyey intay burburiyeen ayay maaragtay meesha ka geli jireen oo kasoo bixi jireen. marka derbigii oo maaragtay jabalka ahaa ee ilaahay u sameeyeyna kuwaasaa burburiyey. kuwan mooryaanteeniina waxay maaragtay qodayeen laamiga hoostiisay qodayeen oo qeyb ka mida waaba dumiyeenba. haddii marka aan taas laga gaarsiin lahayn derbigaas la dhiso, waxaa dhici lahayday kuwa airboorada caalamiga iyo meelahaas xukumaa inay warqad soo saaraan oo ay yidhaahdaan laguma degi karo jidkaas maadaama runwaygii oga. warqadaas hadday soo baxdana inta dib loogu noqon karo in mid kaleeto lasoo saaro oo waa lagu degi karaa, waxaan isleeyahay waxaa laga mari lahaa dhowr iyo 10 sano kale in warqadaas lasoo helo. waayo ninka doonaya inaan lagu degin ee warqadaas kuu soo saara dib dambe waa lagu degi karaa inuu si fudud kuu yiraahdo rajo ma laha. marka si aynan muxuu ahaa warqadaas iyo waxaas aan ka baqayna aynan u dhicin, durbaba waxaa ugu horeeyey howl laga qabtay in meesha la dhiso oo derbi lagu aadiyo badda biyaha soo maaragtay soo socod soo faruuran. waxaa kaleeto intaas dheeraa dadka in ay si fudud uga adeegan karaan meel alla meeshii ay doonaan. waa nabadii, dabcan nabadii waaye. iyo in nimankii laga xiro. markaan qodob dul istaago way badneede waxyaabaha aadka u muuqda kuwaasaa ugu muhiimsan. aad u mahadsan tahay. dabcan inta taariikhda aan ka akhriyey baaritaankaygan aan ku ogaaday dadka qaarna ila wadaageen taarikhyahanada ah waxay shaka gelinayeen dhaqdhaqaaq islaami ah oo meel qabsaday oo guulaystay taariikhda inaysan jirin amaba inay yar tahay. ha guulaystaano sida maxaakiimtoo kale 6 bilood hayaan iyo wax la mid ah, laakiin aysan dhicin xukunka ay ku sii waaraan. aragtidaasi ma qabtaa? maxaase sabab u ah? waa su-aal fiican oo aada iyo aadna aan u sugaayay runtii. professor ibraahim cadow raxmatullaahi calayhi ayaa hadda ka hor waxaan discussion ka sameynay qodobkan laftigiisa. warniyahu maxaa nala ku nacayaa, wax fiican baabaan suubinay. markaasuu wuxuu yidhi, isaga dabcan nin oo thaqaafa amrikiya lahu ahaayo maraykana, marka soomaalinimada laga soo tago, marka wuxuu yidhi sheekh janaqow maxaakimtu waa uur aan la rabin ayuu yidhi. markaasaan yidhi jilci. wuxuu yidhi maraykanka marka la joogo gabar aan si sharci daraa maaragtay uur u qaaday oo uur aan sharci ahayn, yacni aan nikaax iyo ku samaysmin, hadday uureysato ee ay dhakhtar u tagtay ay tiraahdo waan xanuunsanayaa dee waan raba, oo dhakhtarkaasina uu rabo inuu gabadhaa daaweeyo, oga yahayna inay uur leedahay, wuxuu su-aalayaa buu yidhi uurkaagu uur la raba miyaa? maya hadday tiraahdo dawaduu rabo qoraya, ilmahaas danka ma laha. haddii ay tiraa hah waa uur la rabo oo wax lagu falaayana dabcan ilmahaas iyo daawadii iyo waxaan ilmahaas wax u dhibayni mu ka fikiri doonaa. marka wuxuu yihi maxaakimtu waxay noqdeen uur aan la rabin oo si qaldan oo aan adduunyadu rabin ku dhashay. saas daraaddeed dan laga male in la burburiyo, dan laga male inay maaragtay muxuu inay hana qaadaan lama rabo. laakiin muqdisho bis ma ahaanoo beriga aad jirteen waxaa idinka horreeyay dhaqdhaqaaqa daalibaan iyo dhaqdhaqaaqyo fara badan oo islaami ah oo aan sidaasi u guulaysan. marka maqaanadaasi ku jiraan iyana wax la doonaya ma ahayn mise nafsad ahaan iyo itijaah ahaan ayaa dhaqdhaqaaqyadu wax ka qaldan? guud ahaan waa isku mid oo adduunka waxaa ka jira aada ogtahay dadkuna wada ogyihiin waxaan la yidhaahdo islam phobia, in sidoodaba shaki badan laga qabo islaam, khaasatan alislaam siyaasi ee doonaya ardi lwaaqic in uu maaragtay injaazaad sameeyo ou dadka xukumo. marka dadka aan islaamka rabin oo caalamka ama heer gobol ama heer caalami ama heer xataa local ha noqdaano oo islaamka xoogaa maaragtay aan soo dhaweyneynin, waxay ka fikirayaan si kasta dariiq saxa iyo dariiq aan saxnaynba inay kula dagaalamaan. waxaana daliil annaga keliya naguma dhicin, wixii la doonana ha loogu marmarsiyoodo, xataa hadday marmarsiyo lahayn waa isla sidaas. algeria oo kaleeto tusaaley u tahay. haddii la yidhaahdo maalan maxaakimtii iyagaa dagaal galay oo ama etoobiya daadaansadeen haddii la yidhaahdo
طالبان دربيه مصوره waa hore lagu sameeyo oo dadkii buudistaha iyo ay caabudi jireen ay jajabshaan haddii justification looga dhigo Algeria ceeb waa loo laayahay wixii ka dhacay haba yaraatee dadkaas waa wadaado doorashadii ay ku guuleysteen ee islaamayna dalka ku xukumayaan waxaan ahayn looma hayo waxaan kale oo la sheego marka waa wax maaragtay muxuu ahay marmarsiyo ah oo dadka loo sheego laakiin waxa ugu weyn oo loola diriraya waxa weeye qof ka fikiraya dhaqanka dadka diinta dadka oo muxaafida oo wax dhowraya oo aan isdhiibin oo qable oo muwaadina oo wadaniya oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa inuu wax u qabto horumariyo raba oo islaam ku abtirsada السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ورابي وهرات سرعي. هاي. وعكلوا إذا وجدنا ويلو أنت ودنا سوى هيسين هل بعدين ما ركتين. هذا. جيل بدنا صارني. هذا إلا قرمي كام قنتاي. هذا الشيء صدع مع الماضي كم قنتاي. استنى عيلة هذا. استلاب. ما عاد عسده. هذا سوق القاري جيلك والقورة ديني. ديار طبعا الوهاية ديار حتى hormuud 4G internet xawaaro sare leh goob walba iyo goor kasta hormuud isku xiraha bulshada waya tan discussion-kii ama doodii aad ka yeelateen doctorka Allah u naxariistay Cabdu iyo adiga hadii kula jireen dadka la sheegi doona maxay ku dhamaatay waxa maxaakiimtu yihiin uur aan la rabin oo calool ku jira aragtidaas ma la qaadateen daraasad ku sameeyeen maxaad ka soo saarteen doodaas ma ogaatiin waxa la idinku diiday طبعا waa ogeyn waana ogaanay wax baaris u baahan ma ahan waa wax iska waadix oo la wada og yahay warka uu sheegana wuxuu ahaa war is yiri ayuu ahaa baaris uma baahnayna waa wax waadix ah ilaa hadeertaana waadix ah waxa loo baahan yahay marka oo maaragtay muhiim ka ah meeshaas oo kaleeto waagii aan muxuu ahaa jabkii maxaakiimta ka bacdi aan ismara tagnay arintaas waa la daweeyay kiimta ka horan rabaa inaan wax ka weydiiyo waa midowga maxaakiimta waxa la yiraahdaa waxay ka koobnaayeen laba itijaah ama laba dhinac oo dhanka fikirka ah dhinac lagu tilmaamay qunyar socod ama aan mayal adkayn iyo dhinac kale oo la yiri waa jihaadiyiin salafi ah ama mayal adag labaduba daraasadan waxay ku qoran tahay Al Jazeera page-keeda iyo meel kale oo ku qoran tahay dhanka qunyar socodka ah ama dadka mucaasarka ah waxa madax u ah baa la yiri Sheekh Sharif Sheekh Ahmed gudoomiyihii maxaakiimta halka dhanka kalena la yiri Xasan Daahir iyo Turki iyo madax u ahaa اتجاهات أساس مو إسرائيل محاكمت. هل شيء شكل عن وايه إن أركتدا كلا دوان تهاي أما الله بها لجوس وكوبا أما هلا بديو لكن عموما سيداس إن لورد جو ووح ماركتي أوكي وحنس سيدا لورد جو أن أدو أهين اتجاه هبلنا هبله جامين أي اتجاه هبلنا هبله جامين أي سيدا لورد جو معه waxa kan ama muxuu ahay tashadudka la yiraahdo ama se muxuu ahay qunyar socodka waa qof iyo fikirkiis inta aysan urur noqon ama aysan jamaaco noqon ka hor waa qof iyo qanaacadiis way dhici kartaa inay rumuusta aad loo yaqaano ay ragaas aad tilmaantay ee laba xasan ay maaragtay ramzi u noqon karaan
xasan daahir xasan iyo turki haa laakiin keligoodna ma ahan hal itijaahna ma ahan hal gruubna ma ahan laakiin waa wax oo maaragtay mushatat ah oo qof iyo fikirkiis ah marka fikir jira ramzi qof iyo qof waa ka sheegi kartaa laakiin dadku waxay u sawiranayaan haddii saas la yidhaahdo hal kutlo oo hebel iyo hebel madax u yihiin saasna ma ahan waa dad oo shacabkaa ka mida afkaar kala qaba dhanka muctadilkana waa saas oo kaleeto wax hal kutlo ku wada jira oo hal urur ku jira oo hebel madax u yahay sawirka noocaasa sax ma aha yacni waaqiciyan sax uma aha laakiin nadariyan waa u muuqan karaa nadariyada saas qabta oo saa iyo saas ama muctadil ha lagu tilmaamo ama mutashadid ha lagu magacaabe afraadda ama rumuusta u muuqmuuqata hebel iyo hebel baa ka mid ah saa waa la dhihi karaa ama marka saasaan u tawjiihin lahaa wayahay maalmihii maxaakiimta ama ayaam almaxaakim alislaamiya waxaa jiray shirqoollo dhacay dalka oo loo tiirinayay dhaqdhaqaaqyadiina islaamiga ah waxaan ka xasuusanaa oo ilaa hadda la isweydiiyaa dilkii cabduqaadir yaxye oo shaksi muhiim u ahaa dalka iyo dadkan soomaaliyeed maxaa loo dilay cabduqaadir yaxye yaase ka dambeeyey aniga horta waagaas khidmada maxaakimta iyo shaqooyinkooda toos uguma jirin waxayna ahayday xilligii maxaakimtu ay sida rasmiga aysan midnimo weynu aysan u jirin oo qabaa'ilku ay maxaakimta qabaa'ilka ay dhisnaayeen dabcan maxaakimta qabaa'ilka sidaan hadda ka horna dhowr jeer aan carabka ku dhufanay qaab qabiil ayay u samaysnaayeen sababtana qabiil inay iska rabeen ma ahane qabiil qabiil u gudbi karaan jirinoo wadcigaas jiray waktigaas ayaa saas ahaa xamar marka inay qabiil walba intay iskood isu abaabulaan ay xaafadooda nabadeeyaan waa tan ka soo hadalnay marka qabiilku waxay iyagu doorteen maahane wadcigaas sida ahaa anigu marka dabcan ka beel ahaan maxkamadda xariiryaale dadkii wax ka dhisaan kamid ahaa maadaama aniga deegaankayga beeshayda ay tahay hawsha aan doorka aan ku lahaana dhisidda ka sokow iyo taageerada iyo ka sokow waxay aheeday golaha shuurada macnaha dad oo aan si joogtaa shaqada maaragtay dhayliga ah aan ku jirin laakiin shirarka iyo talooyinka iyo waxyaabaha kale kala qeyb galan ah howlahayga kaleoo gaarka aan waan iska watay marka waagaas aniga khidmada toos uguma jirin oo maxaakimta toos ugama yani shaqada joogtada ah oo yowmiga kuma jirin aniga cabdulqaadir yaxye raxmatullaahi calayhi nin qaaliya oo maaragtay soomaali ku weyn buu ahaa muxtaram ah aqaano anigu shaksiyan asaga iyo faamiligiisa dhammaan qaraabo aan nahay aada iyo aadna looga naxay inta ka naxdayna aan ugu horeeyo aniga dilkiisana aniga hadda ciddii oo bizaad ka dambeysay shaksiyan ma garan karo laakiin waxaa la fahamsan yahay yaa wax dila hadda haddii la yidhaahdo meeshaasaa qolo bastuurad leeyahu ay qof ku dileen waana dhacdaa had iyo jeer ilaa yowmina haada wayna fakadeen haddaynan sheegan xataa niman loo tiiriyaa jira marka meelahaas kama duwana cidda afarta lagu fiiqayo anigu laakiin shaksiyan daatiya bidaad uma ogi cidda ay tahay laakiin tuhumka faraha xaggaasa ay u taagan yihiin maxaa loo dilaa kula soo harta maxaa loo dilay cabdulqaadir wuxuu ahaa nin galaangal fiican uleh oy isku fiican yihiin xaruntiisa uu ka madaxda ahaa c r d muxuu ahay dadka la shaqeeya ama uu la shaqaysto oo ajnabiga ama cadaana ama soomaalida ka baxsan yacni waa iska garan kartaa qofkii maalin gaal salaamaba in la yidhaahdo waa xujoobay hala soo dilo waa wax iska maaragtay waayadan nagu badan marka inahaas unbuu ahaa nin gaalo la socsocdo oo lagu maaragtay la iska tuhmo waa un inahaas wax ka badan inuu ahaa u malayn maayo marka tuhumka ah cidda wax disha waxaa jira dad lagu tuhmaa markaad leedahay ayaa u dula jeedaa ma dhaqdhaqaaq islaami ah oo markaas joogay oo aad ka waraysaba taqriiban waxaa jira itijaahan hadda aada sheegtay oo tashadudka lagu tiriyo oo aan berigaas magacaan hadda uu leeyahay aan lahayn laakiin jira oo wadanka ka jira oo shakhsiyaadkooda la yaqaano oo dhaqdhaqaaq leh oo
activiteed fara badan sameynaya baa jiray laakiin aan sidaan hadda ay yihiin aan u habaysnayn magacaan ay hadda leeyihiin magacaawna maxaakiimta islaamiga yah laakiin ku magacaawna maxaakiimta islaamiga falkay doonaan ha geystaan maya qayb ka ahaa maxaakiimta waa ka mid ahaayeen oo qayb waa ka yihiin laakiin si gaaray u dhisnaayeen si gaaray u dhisnaayeenoo waxaa jiray intaan magacaan shabaabka aan la bixin ka hor waxaa jiray wax la yidhahdo mucaskaraad mucaskar hebel mucaskar hebel mucaskar hebel oo ay qolaba meel suubsatay mucaskarada noocaasa ayaa al-shabaab uu ahay waa rag is-abaabulay oo fikirkaas mutashadidka ku midaysan oo aan ayaga maamul midaysan mideeya uusan jirin dadkaas waaye dadka marka maxaakimtuna waa ka gooni wax xiriir idin kala dhexeeya ma jira xiriir oo wada shaqayn ma jiro laakiin xiriir isdugsiyahaa jira isdugsasho mar haddii aada meel isaga soo dhacdaan qof asigana iskiis isu abaabulay oo aada maaragtay muxuu ahaa meelaha qaarkood aad isaga soo dhacdaan shaqada isdugsashaa la yidhaahdaa laakiin nidaamna kama dhexeeyo maamulna kama dhexeeyo fikirna kama dhexeeyo laakiin meelaha qaar ay isaga soo dhacaan ood muwaafaq ku ahaydeen sida la dagaalanka hogaamiye kooxeedyada oo kaleeto sida kale maxaa kale sida in shareecada islaamka dalka lagu xukumo oo kaleeto laakiin isku nadro isku aragti kama isku aragti lagama ahan markii halkaa laga gudbo mainka isku aragtiya laga hel laakiin marka laga soo dego hal tallaabo laslama qaadi karo marka dadka tuunka farta uu ku gudan yahay waa mucaskaraadkaasi cabdiqaadir yaxya duley saas miyaa saas wey war yaan ka magacaabi karnaa ood leedahay mucaskarkaas qofkaasuu madaxda ka yahaa ka dambeeyay dilka cayrow oo kaleeto tusaale ahaan wuxuu mucaskar uu lahaa shangolo oo kaleeto mucaskar uu lahaa iyo kuwo kaleeto oo lamida oo aan hadda magacyadooda wada aqoonin oo badnaay marka mucaskaraad bay ku magacownaayeen waayahay qaybta tadarufkan ama xagjirnimada sida ay ku dhalatay si madax bannaan uga hadli doonaa weli daawadayaal waxaad la socotaan taxnayaashanii sooyaalka dhaqaaqyada islaamiga casriga ah waxaana marti inoogu ah cabdiraxmaan janaqow sheekh cabdiraxmaan janaqow oo isagu mar noqday gudoomiye ku-xigeenka golaha waa maxaakiimta islaamiga ah wasiirna soo noqday xogayaha guud ee dhaqdhaqaaqii dib xoreynta soomaaliyana ahaa haddaad iminka nala soo qabsatay kusoo dhowo barnaamijkan oo meel aada muhiim u ah maraya sheekh cabdiraxmaan isla ayaamihii maxaakiimta juun 2006 bartamaha muqdisho maalin sabti ah oo dibadbax soconayo ayaa waxaa la toogtay si shirqool ah lagu toogtay Martin Adler oo Swedish ahaa wariye ahaa dilkaasi yaa ka dambeeyay maxaa loo dilay Soofigaas ugu horeyn horta aniga berigaas ma ahayn markaan khidmada tooska maxaakimta ugu jiray sidoo kaleeto tii hadda cabdulqaadir yaxya la mid tahay banaanbaxyaa dhici jiray oo tarabuunka ka dhaca oo aan ka wada warqabnay oo lagu diidan yahay tadakhulka ama faragelinta Ethiopia inta badan lagu diidi jiray waayo xaggaasa waxaa ka socotay cabdullaahi yuusuf oo dhahaya muxuu ahaa iyo ra-iisul wasaare cali geedi iyo tiimkooda oo dhahayaan maaragtay ciidan shisheeye dalka hala keeno iyo baarlamaanka oo ku dhegan oo ciidanka shisheeye safka hore kuma jiri karo iyo doodii socon jirta waagaas marka annagana waxaan aada maaragtay u diideynay oo maxaakimtu guud ahaan ay diidayeen iyo guud ahaan aragtida ra-iil caamka soomaaliduba ha u badnaado in ciidan shisheeyaba dalka la keeno ama safka hore ha ahaado ama safka dambe ha ahaado taas waaba ku kala duwaneyn oo baarlamaanka isaga waxaa ka jirta ciidan shisheeye hala keeno laakiin frontline-ka yaynan ku jirin dowladaha deriska oo dan ka yeelan kara amase xasaasiyad ay kala dhexayso shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya guud ahaan taas ayagoo kala duwan laakiin soomaalida inteeda kale oo maxaakimtuna ay ka mid yihiin total ciidan shisheeyaba uma baahnin baan joognaa diidmadaasaa marka banaanbaxyada u badnaayeen iyo taageeridda maxaakimta iyo hogaamiye kooxeedyada dhibka ay adiga wax noocaasa laga banaanbaxayo iska wacyigelin bay ahayd silmi ah oo si nabadgelya inta la isugu keeno laisugu yimaado haddana lagu kala tegi jiray marka ninka wariyaha ah dabcan dalku dal iska furan buu ahaa wariyaashu iska iman jireen
wuxuu ka mid ahaa dadka sidaas oo dalka u yimiday sida aan u malaynayo anigu dee aqoon uma lahayn hawsha maxaakimtana toos uguma jirin in la dilay waa maqlay sheekh shariif waa baaraynaa waana ka xunnahay waa yiri waa maqalnay laakiin cid loo qabtay anaga ma maqlin iyo baaristaasu meelay ku dambaysa midna ninkaas maxaa loo dilay dee waa uun cabdulqaadir maxaa loo dilay taan hadda kasoo hadlaynay isagaaba kasii xag jiro oo maaragtay nin caddaana ahaayo waa gaal la leeyahay dad badan oo xag jirka ah waxay aaminsan yihiin qofku haddii uusan adiga hadduu gaal yahay hala dilo hadduu gaal salaama hala dilo hadduu maaragtay uusan kugu fikir ahayn hala dilo yacni waa wax oo yani mutasalsul ah oo tasalsulkooda uusan dhammaanaynin ilaa uu ku soo haro qofkaan aniga ra'yigayga yeelin hala dilo marka maalmahaasay ka mid ahaayeen swedishka la dilaayo xilka gudoomiye ku-xigeenka ma aadan haynin ma maxaad ka ahayd maxaakiimta maxkamadii xariyaalaan joogaa hormuud e d s l balas waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaaro dheereeya 24 saac ku darso e d s l balas wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida